iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay shir nabadeed ee beelaha Buuhoodle iyo bariga Burco uu ka socday deegaanka Coodanle oo ka tirsan magaalada Buuhoodle ayaa waxaa maanta deegaankaasi lagu soo afmeeray shirkan oo muddo 2 toddobaad qaatay ayaa waxaa laga soo saaray maanta qodobo labada dhinac ay ku heshiiyeen waxaana heshiiskaasi saxeexay ismada beesha Buuhoodle iyo kuwa bariga magaalada Burco oo si wada jira u soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirka Coodanle sida uu saxaafadda u akhriyay qodobada ka soo baxay shirkaasi afhayeenka shirka nabadeynta beelaha Buuhoodle iyo bariga magaalada Burco Cumar Xoogaal waxay ku heshiiyeen labada beelood nabadgelyo daris wanaag iyo in beel waliba ilaaliso xuquuqda beesha kale laba in wixii dil iyo dhaawac dhexmaray labada beelood laga soo bilaabo kalshaale lagu kala samray oo aan waxba laga soo qaadin iyadoo wixii gaade ku dhintayna la isu tuuray labadii nin ee dheeraadka u noqday beesha hateen isimada iyo culimada diinku saddex in qofkii dambe ee dil geysta labada beelood dhexdooda la waafajiyo shariicada islaamka wixii khilaafa oo dhan ee beelaha dhexdooda ka yimaada lagu dhameeyo shariicada islaamka afar in aan beelina magan gelin nin gacan ku dhiigla oo dil ka soo geystay beesha kale dhexdeeda loona adeegsado cid kasta oo awood u leh inay wax ka qabato waa ku celinaya qodobka shanaad in wixii hadda ka dambeeya ciddii dil geysata ay ku kooban tahay isaga iyo qoyskiisa cid ugu kaalmayn kartaana aanay jirin in wixii maanta ka dambeeya dhibkii dhaca lagu dhameeyo xal nabadgeliyo oo ay waxgaradka iyo guddidu ka kulmaan isla markaana ay reeban tahay in la isugu gurmado toddoba in la dhiso guddi nabadgelyo oo ka dhaxaysa labada beelood oo ka kooban 10 xubnood oo ay labada beelood iska dhex qabanayaan shirka dhexdiisa inta halkan la joogo ayaa 10 xubnood la xulayaa dabeedna iyaga arrinta nabadgelyada guddi u noqonaya b heshiiska arrimaha dhulka ama ba waxay labada beelood ku heshiiyeen si loo ilaaliyo daaqa in aan deegaan dambe oo cusub laga samayn karin dhul daaqaynka u dhaxeeya labada beelood sida inta u dhaxaysa Xaraan iyo Coodan goblo magan iyo Hagoogan Qorlugud iyo Maygaagi Galgal iyo Qabri Hulul Horufadhi iyo Qabri Hulul Horufadhi iyo Ariboob ama Lugbalay qodobka saddexaad in la wada dego magaalada Ariboob ama Lugbalay sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay ismada iyo waxgaradka labada dhinac oo dhankooda soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkan Coodanle dhexmaray dhiigiga dhul iyadoo aan ciidamo ugu garnaqaynin maxkamadna jirin boolisna jirin cid ku dhex jirtaana jirin in ay ka heshiiyaan bay garteen waanay ka heshiiyeen codkoodu waad maqlaysaan cuqaashii iyo odayaashii waxay ku heshiiyeen wixii hore inay ku kala samraan ayay ku heshiiyeen wixii dambana ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ka magan gelaynaa inuu maaragtay naga badbaadiyo mar dambe inaan isdilno warka intaasaan ku soo koobayaa nabadgelyaynu qaadanay waynu ku hawlgelinaa waynaynu ku hawlgalnaa oo ka shaqaynaa oo qof walba wixii uu ka qaban karo waa inuu ka Taariikh Cabdirasaaq Jaamac Star TV Buuhoodle.